duur wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan warka duurnimo warbaahinta qoran media qodobada ugu waaweyn duurnimadan waxaa ka mid ah dagaal waqtigan ka socda deegaano hoostaga degmada aadan yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe xiisad dagaal u dhaxaysa Puntland iyo Somaliland oo aan iraado maanta ka taagan gobolka Togdheer madaxweyne xasan sheekh oo gudoonka baarlamaanka kala hadlay la dagaalanka al-shabaab xasan sheekh oo yiri hub uma dhiibayo roobo balse waa wax ku ool iyo jabhada Tigreega oo dagaalyahanadooda kala baxay furimaha dagaalka radio qaran kala soco warar sugan oo xaqiiqo ah ama booqo qaranmedia.com ismaqal wanaagsan waa duurnimo isniin taariikhdu ku beegan tahay 5 bisha December sanadka 2022 ku soo dhawaada qodobadii faahfaahsan dagaal ayaa waqtigan la soo sheegay inuu ka socdo deegaano hoostaga degmada aadan yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe dagaal u dhaxeeya ciidamada dawladda oo kaashanaya dadka deegaanka iyo al-shabaab ayaa ka socda deegaanada Boos Caduur iyo Warta Dibi Samatar oo hoostaga degmada aadan yabaal ee Shabeellaha Dhexe dagaalka ayaa waxa uu yimid kadib markii ciidamada dawladda oo kaashanaya dadka deegaanka ay weerareen deegaanada uu dagaalku ka socdo waxaana saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka ay warbaahinta ay u sheegeen in dagaalka ay gaadiid dagaal ay uga qabsadeen al-shabaab waxaa jira khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo dagaalkani ka dhashay iyadoona weli la maqlayo dhawaaq rasaas ay soo adeegsanayaan labada dhinac waxaana adag in la helo xog inta ka sii faahfaahsan wixii warar ku soo kordho qaran media si toos ah kula soco xiisad dagaal ayaa maanta waxa la sheegay in uu dhaxayso Somaliland iyo sidoo kale Puntland oo ka taagan tahay wararkan ka imaanayo maanta deegaano hoostaga magaalada Buuhoodle ee gobolka Togdheer ayaa sheegay in halkaasi ay ka taagan tahay xiisad dagaal oo u dhaxaysa ciidamada kala taabacsan maamulada Somaliland iyo Puntland xiisad ayaa ka dambeysay kadib markii Somaliland ay ciidamo fara badan ay keentay deegaano u dhow magaalada Buuhoodle halkaas oo ay gacanta ay ku hayaan ciidamo ka tirsan kuwa dowlad goboleedka Puntland dagaalka aniraad dadka deegaanka ayaa u warmay warbaahintu waxay sheegeen inay soo wajahday cabsi la xiriirta in dushooda lagu dagaalamo waxaana labada dhinac ay ciidamo fara badan ay geeyeen deegaanada ay xiisada ka taagan tahay horey ciidamada Somaliland iyo kuwa Puntland ayaa waxay ugu dagaalameen deegaano ka kala tirsan gobolada Sool iyo Togdheer iyadoo aan weli xal laga gaarin weerarka ciidamada Somaliland ay ku qaadeen 7 bishii February sanadkii 2011 deegaanka Kaalshaale ee gobolkaasi Togdheer ka tirsan markaana madaxweyne xasan sheekh ayaa yiri hub uma dhiibayo roobo balse waa wax ku ool madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa marti qaaday sidoo kale wariyaal ka tirsan TV-ga The Guardian si ay waraysi ula yeeshaan wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta federaalka Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur sidoo kale laga soo xigtay xasan sheekh oo qorshaha dawladda federaalka Soomaaliya kuma jiro in hub siiyo Abu Mansuur si uu furaha dagaalka ugu wajaho maleeshiyaadka gacan saarka leh al-shabaab ee la leh shabaabka al-qaacida hub ma siinayo mana ka codsanayo inuu dagaalamo balse waxa uu noqon karaa mid wax tar u leh oo aan adeegsan karno ayuu xasan sheekh ku yiri waraysi uu siiyay isla majaadalada laga leeyahay dalkaasi Ingiriiska Roobo ayaa kaalintiisii xukuumadda wuxuu ku sheegay furinta dhanka fikirka maamulka xasan sheekh ayay ku dhawaaqay dagaal dhanka militariga dhaqaalaha iyo caqiidada ka dhanka al-shabaab tani ayaa ka dhigan in Abu Mansuur uu hogaamin doono duulaanka dhanka ama duulaanka ka dayaca warbaahinada ee dawladda toddobaadkani wuxuu ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ku wareejiyay qorshaha howlwadeedka wasiirada wararka ay sheegayaan in qorshahan uu qayb ka yahay telefishin cusub oo laga hirgelinayo warbaahinta dawladda ee SNTV daljir oo dawladdu shisheeye maalgelinayaan wuxuuna baahin doonaa warar howlgalada ciidamada militariga Soomaaliya madaxweynaha oo dhawaan tagay qaar ka mid ah furiimaha dagaalka al-shabaab ayaa aaminsan Roobo uu ku qancin karo ugu yaraan qaar ka mid ah saxaabtiisii hore inay soo goostaan
dhanka kalena madaxweynaha ayaa sidoo kale kulan la qaatay guddoonka baarlamaanka wuxuuna kala hadlay dagaalka dhanka al-shabaab. madaxweynaha dowladda federaalk Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan la qaatay guddoonka iyo guddiga joogtada ah ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo ugu warbixiyay halganka dadka laga amdiray dalka laga xoreynayo argagixisada al-shabaab. madaxweynaha ayaa xusay in baarlamaanka federaalk Soomaaliya ay udub dhaxad ay u yihiin qorshaha iyo dagaalka ka dhanka al-shabaab. madaxweynaha ayaa ku booriyay guddoonka iyo xildhibaanada baarlamaanka federaalk Soomaaliya inay dardargeliyaan ansixinta sharciyada iyo siyaasadaha turtabinta u leh dowladnimada ee xukuumaddu ay u soo gudbinayso lana xoojiyo wada shaqeyn golayaasha dowladda. kulanka ayaa waxaa ka qayb galay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalk Soomaaliya Mudan Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe, gudoomiye ku-xigeenada koowaad iyo labaad ee golaha shacabka Marwo Sacdiye Yaasiin Samatar iyo Mudan Cabdullaahi Cumar Abshira. ugu dambeyntiina jabhadda Tigreega ayaa dagaalyahanadooda kala baxday furimaha dagaalka. madaxda ciidamada falaagada Tigreega ee waqooyiga Itoobiya ayaa sheegay in 65% ay kamid ah dagaalyahanadooda ay ka bixeen furimaha dagaalka. arrintan ayaa kusoo beegmaysa bil kadib markii ay heshiis xabad joojin ah ay la saxiixdeen dowladda. Teddy Swarde oo ah madaxa guud ee ciidamada Tigreega ayaa sheegay inuu sidoo kale dhaqaaqeen goobo cayiman inkastoo ay saxiixeen heshiis hubka dhigisa. jabhadda xoreynta Tigreega ayaa sheegtay inaysan ka tanaasuli doonin hubkeeda haddii aysan ciidamada Eritrea iyo kuwa kacdoonka gobolka dariska la Itoobiya aysan ka bixin Tigreega. maalmin la soo dhaafay shaqaalaha gargaarka ayaa sheegaya in ciidamada Eritrea iyo maleeshiyaadka xulufada la ay si wadeen dilalka iyo tacdiyada dadka rayidka ah ee Tigreega. gudaha saaxiibayaal qodobkaasi ayaa u dambeeyay warka duhurnimo oo aad ka dhageysaneyseen Qaran Media. nabadgelyo. radio qaran kala soco warar sugan oo xaqiiqo ah ama booqo qaranmedia.com